dhammaan waan islaamayaa macnaha maalin baan ka hadlay maalin dhawiitaan ka hadlay garaarkan ama maasadan saa u taqaanaan marka insha Allah haddana waan igu celinayaa Ilaahay ka dhigo waxaan wadaagaya maasada saddex qofka u horeeya waa dhexdhexaadse qofka xigana waa dhulkiis jooge qofka saddexaadna waa dhulshayaade iyo dhowrsano wadaada sheekada soo dhamayn doona waxaana bilaabaya dhowrsano wadaad dhegta hadalka gaarsii dhawaaqayga maqalo ilaa aan dhameeyana murtideeda dhuuxo yaan la dhayalsan ereyada shimahayga dhowrsami ay kala dhigayaan isha dhow aan dheereen dhinacayga maan dhigin waxaan isbabac dhigay xoolo dhaqatadeeniyo dadka dhoofka jecele dhul shisheeye aada ninka dhaxal awowgii dhaqankuu lahaa iyo dhaqdo xoolihiiso haddii goor ku dhiiro shaqadii dhulkiiso habba dhinac barwaaqada shaqadii dhulkiiso hadba dhinac barwaaqada dhubcad caanaheedii iyagoo isdala rogi aameel ku dhamo oo danfaruurta mareerkii yeebtiisa isdhaafsho miracaska dhalaaliyo dhirtihiisa rurtu dhigay ka jabsada dhirtiisoo hilibkiiyo dhuuxiyo dhuunigaa fareeshka ah dhibla-aansha ayara hawdkaa ku dheefsada iyo dhoohanaha tegi meel baraf ka dhacayo dhaxantiiyo qabowgii feeraha ay dhirbaaxeen oo tahliil ku dhoofo mawjadaha isdala roga badda dhumucda kulul iyo berigaa dhaxantale usii dhabareedeego intuu dhex marayana u dhexeeya geeriyo inuu nolol ku dhaafaa dhacdo yaabla weeye labadaba u dhawaaqoo dood dheer u furay dabadeed ka dhacbaxay dhulkiisa joogaan ku dhoway ereyada dhulkiisa joogi wanaag iyo dheef mooyee wax dhiba maan qabo dhulkaa u dhooftaan dhulkaygaa ka wacanoo khayraad ku dhex yaal dhinac xoolaha yaal dhanna beeraha yaal dhanna laba badood iyo webiyaan dhammaanayn biyahooda dharaar qura dhan kalena macaadiin maxaan dhoof ku falaa maalinteeda dhorsada kaasi wuu dhammaystee dhul shisheeye aadan ku dhaweeyay ereyada warniyaho madheel baa hadalkaa dhahaysaa mise waaba dhalanteed nabaad guur dhulkeennii xoolihii dhammaad bay u dhow yihiinsa dhimashada dheri nooma harino geedihii la dhuxule bini aadamkii dhoof ugaadhii dhaqaaqday ayaa dayalo haysaa aan dhaadhaco dulucda sii dhufta asbaabtaas dhab ahaan waxay tahay waa caradha neebiyo casawajalla ku timaaday dhiig iyo qabyaalada dhunkaasha ah dhidabadaad u taagteen war ka soo roor dhibaatada miskiinyow dhactaasha dhexdhexaadka soo noqonaya dhakafaare aniguyo markii aan dhegaystay dhumucdooda hadalkiiyo markii aan dhuuxay sida ay doodahooda dhiiroon isku dhaafsanayaan gartaan maan dhexgeli karo waxaan hayse dhalinyaro waa inaan u dhiibaa gultida u dhoonloon ka dhexbaa siday tahay dhowrsano wadaad baan ku dhaweeyay ereyada dhalin yahay qaraarkiyo macaankaa la dhaashadaa dhalin yahay waxaa tihi mustaqbalkii dhulkeeniyo lafdhabartii bulshada iyo dhismaheedii aayaha iyo udub dhaxaadkeed ninka dhoofayo maqal dhab ahaan adduunyada laba ayaa la dhowraa dhimashiya lidkeed aakhiraad u hooyataa dhan kalena dhimashiya lidkeed aakhiraad u hooyataa dhan kalena hooyadii aabihii ku dhalayo dhinacaaga joogo dhuunigaaga ka hay inaad kusoo dhawaaqdood magafan dhex jooga dhowr kun buuna sugaya waxay u dhigantaa bahalkaagu dhaafshee adoo nolosha dhaafso dhiigooda cabaya aan idin dhameeye dhalinyaroy wax maqla oo haddaad wada dhaqaaqdaan
amba aad badhooftaan dhulka yaa u hariyo dhaxlina yadiisaas. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. cabdullaahi naseex aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. dadkiina fahmay waa gabaygu wuxuu ku saabsanaa nin dhulkiisa joogo iyo nin dhoof rabo oo dibadda aadayo. aad baad u mahadsan tahay. haddana waxaa noogu xiga maxamed. maxamed waa reer maalmo, waa abwaan sida cabdullaahi oo kale ayuu asagana gabayadiisa noo soo bandhigi doonaa. kadib arrintaa markay dhammaato hadda waa la idmo dhaantadii iyo tartankii ayaa noogu xigo. kooxda koowaad aan ku bilaaban doono waa kooxda waaweyn. marka koowaad hal dhaanta ayay soo bandhigi doonaan. kadib markay soo bandhigaan waxaa noo jooga garsoorayaal ka bixin doono hadal yar ka dhihi doono siday u ciyaareen. kuwii yaryaraabaa soo geli doono, ayagana hal ciyaar ku ciyaari doono. koox yaryar baa jirto, ayagana way ka baxayaan. kuwa waaweyn baa kusoo noqon, haddana ciyaar kale ay ciyaari doonaan. markay ka baxaan kuwa yaryar baa kusoo noqon doono. marka waxaa weeye laba chance ayaad haysataan. marka koowaad ood ka baxaan kuwa yaryar ay soo galaan, iyo marka labaad ay kuwa waaweyn soo galaan. marka kuwa yaryarna 2 jeer bay ciyaarayaan, idinkana 2 jeer baad ciyaari doontaan. inta udhexaysana garsoorayaasha ayaa meesha joogo. markaad labadaa ciyaar aad ciyaartaanna waxaa go-aan gaari doono garsoorayaasha. maxamed soo dhawow. marka hore dhammaantiin waan idin wada salaamayaa, dhalinyaro, waayeel iyo mataqaanaa haweenba. halkan waxaan kasoo jeedin doonaa run ahaantii gabayadeeda way fara badan yihiin, laakiin mid aan ugu talagalay martida ayaa jirtaa, mid aan dhalinyarada ugu talagalay baa jirtaa, iyo mid kale oo aan ka tiriyey oo mataqaanaa xanuunkan dilaaga HIV/AIDS-ka. marka sidan ay kala yihiin. marti ahayna soo booqatee maantana la joogta. marka hore dhambaal baan sidaa muxubo dheeraada. marka xiga mugdigu waa xun iyo maqala oraahdayda. ummad yahay muddada dheer jirtay magaca wan yeeshay, idinkaa malaayiin jahliya erey u miidaanshay. micno badan idinkaa siiyey oo mustaqbalna u yeelay. qaar baa maraakiib ku xidhan maxal badahaasi, miiraajka qaar baa duuriyo meelo samadaasi. mucjisooyinkaasoo dhan baan maanka ku hayaay, macbuudkiina kii siiyey baan mahad u haynaay. maalin iyo habeen baan dartiin muxuube heesnaay, marna lama ilaawo hadumin muruga waaci. yalla horta marka hore midka kalena waxaan leeyahay markii aan midownay xornimo mawlan ugu tooshay, shanta oo midoobaan jeclaa iyo maamul xoog badan. ha yeeshee masiibaa dhacdiyo maamul garan waaye, midba meel ayuu goostay oo calan ku maamuustay. mooryaan maryacalas dhuljiif iyo jimbaa maamulkii galay. mowlaha ilaah baan baryaa inuu magacii nooleeyo, dadkuna ay midoobaan naxliga meesha laga saarmaan. kii saddexaad waxa weeyaan markuu aadan dunidan ku abuuray deeqluhu, xaawow duntiisiiyo ka dilaacshay feedho. siduu dad uga beeruu degan ooridiisiyo, hooyo loo duraantiya uga dhiga dulqaad badan. waana dawga noloshiiyo dariiqada islaamkiyo diinta ciirsigeedo. xanuunadan dilaaga ay dhiskan difaaco, dalqadaha nikaaxa dabar qooyo cudurka. hadday qoonistoorshaan dulmiga iyo ceebaha, dadku ku xaragoodaan sharaftooda doorshaan. anna waan dulayn buu daankeeni nagu yidhi. dalab lagu hadaagiyo duufaano ku kiciyaa, dabadheer abaariyo dil baa lagu fidneeyaa. caydh iyo dagaal iyo daanduuqu xoontiya, faqrigaa ku daayima cirku kuma dul hooro. daruuxa dhankooda caad lagu daboola. ummad yahay digtoonow cudur aan dawo lahayn, dawadiisa aan la helin. waa durriyad iblaysiyo naaraha midda u daran. dadkoo soo hulaaqee war hoysiinada iska daya xalaashina u dadaalamaan mogta. marka waad mahadsantihiin baan leeyahay. aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan u dhiibi doonaa abwaan astur iyo kooxda meesha fadhido si ay bal wax yar ooga sheegaan dhalinyaradan yar ee soo bandhigay gabaygooda. eray ahaan hadda isku dul taagi karno erayadii erey uma qaadan karno, laakiin waxaan dhihi karaa labaduba dadaal fiican bay sameeyeen. labadaa nin ee odayaasha ee gebiyey ama heesay. magacay ku adeeg cabdullaahi yare arrintiisaan ku horeynayaa. kulley waxay la tahay sugaanaan ooma qiimeynayo, waxaan u qiimeynayaa laakiin ujeedada ay xambaarsanayd
sugaan ahaan waa is okay ujeeddada ay xambaarsaneed baan markaa rabaa inaan waxay faallo ka bixiyo niman baad dhexaadinaysa nin tahriiba iyo mid raba inuu dhulkiisa joogo saddex ruux weeyaan adigu waa laba saddex ruux qof dhexdhexaad iyo qof dhulkiisa ka dhoofiyo iyo qof dhulkiisa rabo saddexda qof baan anigu u dhexeeya labada qof baan anigu u dhexeeya oo sanadna aniga soo dhowdhoway marka arrintan tahriibka waa arrin fanoomeno cusub weeye waa wax inagu cusub oo bulshadeena ku cusub tahriib dadku inuu istilo qofku inuu istilo oo laftiisa soo xiro qisaaso ayay u dhigan tahay akhlaaqiyana wax qurux badan maaha dhaqan ahaan qof aan qab lahayn baa tahriiba qof aan isla weyneyn oo kibriyaa iyo qab iyo dal iyo meelu joogo iyo yani waa dhibaato markaad heerkaa gaadho qofku xorriyadiisa ashaafalatayn baa leh safarada qaarkood waxaa la ashaafalatayn waxaa weeyaan waxaad marna yeeli karto marna aad iska dayn karto laakiin haddaad tiraado waa ku qasban tahay baddan inaad gasho waa khalad marka waan taageerayaa gabaygaaga inaad dhalinyarada ka wacyigeliso tahriibka magafahana si fiican baad u sifaysay reactionka hooyadii iyo aabbahana si fiican baad yaad u dhigtay inaad adduunka inaad u dhaaftay ayaga baad adduunka dhaafinaysaa hooyadaan waxba haynin markaa tiraado magafa haysto $10,000 bay iga fadhiyaa wadna aad goysay islaantii wiilkeedii la yidhi sida kale u noqday waxay u dhimatay muraar dilaac marka arrintaas aad baan usoo dhaweynaa in la badiyana way fiican tahay oo dhihi karay maxamed abwaanka tixab badan buu tiriyey waanay u badnaayeen waa qurux badnaayeen sugaan ahaanna way dhisnaayeen fact dadkuna dadka soomaalida baad waaninaysa meelkasoo joogaanba ilaahay ha ku anfaco adigana waanidaada ilaa tawfiiq abwaankaa sheegan qabaa intii aan inagu sheegi lahayn aad baa u mahadsantahay astur aad iyo aad ayuu astur u mahadsan yahay tartankii ayaan bilaabanaynaa nu ska vi börja med tävlingen första gruppen är de heter MKBF waxaa la dhahaa groupka u horeeya soo geli doona MKBF waa group is aruursaday dhalinyaro gabdha ay ka dambeeyaan ay hormuud u yihiin meelo badan kusoo tartamay kusoo ciyaaray kooxda u horeyso MKBF kusoo dhawaada
MKBF kooxda MKBF aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ciyaar aad u qurux badan baad soo bandhigtaan wax yar meesha taagnaada muxuu ahaa garsoorayaasha ayaa wax yar muxuu ahaa ka hadli doona saad u ciyaarayseen saad iskula haysateen inaad bahasha si quman u jebiseen فعلا لا يبقى باشي غالي طبيعي دي لا شايلو الله يقول حاجة